وتأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دبا جنال كان يدا ونيسين وا جنالك عبد الله وطيفة. فضلا مركو وريسن سو بوقتا تاي فضلا سكسكرايب لايك شير si saaxiibo badan oo gaaro fiidiyoga. maanta waxa wadnaa qiso dhaxmartay Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam iyo habeeney ayaa waxay u timid Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam waxay ku tiri waxaad ii baridaa rabbigaaga inuu ubad igu arsaaqo. Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam ayuu rabbigiisa bariyay. Allah ayaa si toos ah ula hadlay wuxuu yiri Muuse adoonteedu wax ubad ah dhalimayso. way iska tagtay maalintii xigtay ayay haddana Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam u timaatay isla hadalkii ayay dhahday. wuxuu ku yiri ilma dhalimayso ayuu Allah ku soo yiri. iyadana waxay si hoos ugu jawaabtay waa naxariis badane rabbigeyga. sanadkii xigay ayay u timaaday isla codsigii ayay u dhiibatay. haddana sidoo kale wuxuu ku yiri qof dhalayso ma tihid. iyadana waxay si hoos ugu jawaabtay rabbigeyga waa naxariis badane. sanadkii labaad ayay u imaaday Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay iyadoo garabkeed ku sidato. wuxuu ku dhahay cunugan waa kuma. waxay tiri waa wiilkayga. Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam wuxuu la hadlay Allah. wuxuu dhahay rabbiyow waxaad igu tiri gabadhan dhalimayso waa maxay ubadkan. Allah ayaa ku yiri Muuse markasta aad dhahaysay wax ubad dhalimayso iyadana si hoos ayaa ka jawaabaysay rabbigeyga waa naxariis badane. naxariisteeda waxay ka tanbadisay qadarteeda. raxmadeeda wax kasta ayay u waasac noqotay. Allah ana wada siiyo ubad khayr qabo. qisada Nabi Muuse iyo haweeneyda oo dhaxmartay inta ay ku dhamaatay mar walba macna Ilaahay yaalay quursanin sababtoo ah Ilaahay ayaa macna ku sheegay quraankiisa qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ilaahay naxariistiisa malay quursado linki ka quursado Ilaahay naxariistiisa waa nin qasaaray. marka fadlan waxaan iga codsanaa inaa macna share kareysiin si oo saaxiibo badan oo u gaaro fiidiyowan sababtoo ah tusaale ayay noo tahay. wassalaamu calaykum tacaala wa barakaatuh. kulan dambe oo xiiso leh.